Wasiirka Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo isaga iyo wafdi hogaaminaya ay shalay soo gaareen magaalada Galkacyo isla markaana ay kamid ahaayeen wafdigaasi safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo Midowga Yurub Yoonis Yaasiin Xaashi iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa kormeeray maanta qaybo kamid ah magaalada Galkacyo isagoo kulamo la qaatay mas'uuliyiin iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda Puntland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa intii uu ku sugnaa Galkacyo waxa uu kulamo la qaatay isimada Gobolka Mudug ee Puntland isagoona kala hadlay xaaladaha dalka iyo doorka isimadu ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale intii ay ku sugnaayeen Galkacyo kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta Maxamed Cawaale halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen guddiga dhismaha garoonkaasi kuwaasi oo warbixino ka siiyay halka uu marayo dhismaha garoonka oo haatan meel fiican maraya. Wasiir Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa isna ku amaanay guddiga dhismaha garoonka iyo isxilqaanka ay muujiyeen isla markaana keenay in garoonka uu haatan soo gaaro meel gabagaba isagoo dhanka kale ku amaanay shacabka iyo dowlad goboleedka Puntland dadaalka horumarineed ee ka soconaya magaalada Galkacyo. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa gelinkii dambe maanta ka soo ambabaxay magaalada Galkacyo iyagoona soo aaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Galkacyo.